taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdi Maxamed Fiidow John oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay dowladda Soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifataax Ibrahim Sabriye Shaawey oo isaguna munaasabada ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in uu aad iyo aad ugu hambalyeynayo naadiga isboorti ee Heegan maadaama ay yihiin buu yiri kuwa markaasi mudan in ay koobkani qaadaan. waxaan hambaleynayaa kooxda ku guuleysatay